waxaan ku bilaabi doonaa hadii Ilaahay dhaado aayadaha Quraanka Kariimka ayaynu ku bilaabi doonaa si madasheenu ay noogu furanto waxa aayadaha Quraanka Kariimka inoo akhri doona aadan Mustafa soo dhawaado أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ماريا كلية عبد الرشيد طاهر oo nooga warami doona background ka taariikhda kulliyada mudane عبد الرشيد طاهر ku soo dhawaad leeyahay maareeyaha la soo dhaweeyo saxabka ha loo tumo بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad waxay mahad oo dhani u sugnaatay baha suuragal ka dhigay inaga oo caafimaad qabna inaga oo wada wax weey faraxsan inaanu isugu nimaadno goob kamida goobaha ugu sharfan xilliyada qalin jabinta ilaahay baanu marka koowaad aanu ugu mahad celinaynaa intaas kadib dhammaan marti sharafta qalin jabiyaasha waalidadooda macallimiinta bahda suugaanta bahda warbaahinta iyo madadaalada dhammaan ardayda qalin jabiyaasha saaxiibadood marti sharafta ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh intaas kadib mudanayaal iyo marwooyin waxa sharaf gooniya ii ah anigoo ah maareeyihii kulliyadda Eastern Africa International College inaan xafladda qalin jabintiina aanu idinkula faraxno baa waxay noo tahay special consideration dhammaantiina waxaan idin leeyahay hambaliyo mudane Cabdullaahi Maxamuud Mataan maareeyaha wakaaladda maamulka iyo dabagalka daawooyinka iyo cuntada ee deegaanka Soomaalida Dr. Muuse Maxamed madaxweyne ku xigeenka qaybta waxbarashada ee jaamacadda Jigjiga xildhibaan Maxamed Ayaanle wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka Soomaalida marwada kulliyadda Ifraax agaasinka xuduudda shaqaalaha ee xafiiska caafimaadka mudane Cabdi Xuseen agaasinka qaybta dabagalka iyo tayeynta xirfadaha iyo shaqo abuurka mudane Cali Nuur dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada kulliyadda Eastern Africa International College dufcadda tobnaad ee ka qalin jabinaysa haddii Ilaahay yiraahdo maanta oo ay ku beegan tahay 17kii bishii labaad ama February 2026 intaas waa hordhac hadalkaygana dib baan ka dhigan doonaa waxaan markan ku soo dhaweynayaa si uu hadalkayna ugu furfuro Dr. Muuse madaxweyne ku xigeenka jaamacadda Jigjiga qaybta caafimaadka Dr. Muuse mudane soo dhawow anoo ku hadlaya magaca jaamacadda Jigjiga ahna aad maaragtay aan u soo dhaweynayno qalin jabinta college-ka aan bahwadaagta nahay Eastern African International College runtii college-ku aad buu dadaalaya annaguna jaamacad ahaan college-ka inaan caawinno inaan maaragtay iskaashanno wixii waxbarasho ku saabsan anoo ku hadlaya magaca jaamacadda Jigjiga inaan caawinno college-ka college-ka garab istaagno xagga tayada xagga adeega xagga maaragtay programyada kala duwan inaan ku caawinno college-ku aad buu dadaalaya wixii maaragtay practical farsamo u baahan wixii caawimaad u baahan ardayda meesha ka qalin jabisay shaqo abuurkoodii inaan ku caawinno ayaan naga go'an tahay
ardayda maanta xaggan ka qalin jabinaysa tiro gaadhaysa 209 inay galayaan exit examka iyaan maaragtay xogta haynaa exit examka nacam imtixaanka maaragtay digriigii maaragtay loogu talagalay ee xaqa Itoobiya ku dhawaaqi lahayd imtixaankii lagu galayo weeye imtixaankaas jaamacadda Jigjiga iyo toddobaadka soo socda lagu galaya ardaydaas si gaar ah u soo dhaweynaynaa toddobaadkana waxaa jira adu meelaha khamiista ama arbacada in already systemku furan yahay oo wixii maaragtay trial training ah ee maaragtay uu banaan yahay ardaygu isagoo username-kiisa iyo password-ga isticmaalayo inuu computer-kaas uu ku tababarto taana aan ku soo dhaweyno jaamacadda computer lab-keena haddaad diyaar u tihiin inaad tababarkaa qaadataan ayaan ku soo dhaweynaa natiijada meesha ka soo baxaysa natiijo si guud ah loo leeyahay inay noqoto deegaan ahaanna magac fiican oo maaragtay aan munaasabad ama sharaf aan ku helayna maadaama ay tahay intaan iskaashanno wax la wixii aan ardaydiina u qaban karno dhan inaan u qabanayno insha Allah iyaan ka ballan qaadayaa meesha inta haddaan maaragtay ku soo koobo hadaladii faahfaahinta ah waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo aad baad mahadsantihiin aad bay mahadsan yihiin mas-uuliyiintu waxaynu ku soconaynaa mas-uuliyiinta haddana waxaan u yeedhayaa aad la soo dhaweyn doontaan maxamed ayaanle xasan wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida hala soo dhaweeyo sacabka lagu soo dhaweeyo wasiir soo dhaweey baa kuleenahay si fiican la soo dhaweeyo دكتور موسى مدحونا كحيانكا جامعة جيجيغا مدن عبد الله متان مارياها وكالة دبقالك عنتدي دوينكا سيدو كلام مارياها كلية إيست أفريقيا انترناشنال كوليج مدن عبد الرشيد دمان كسوق بقلياشا مناسبة قلنجمينتا iyo dhammaan ardayda quruxda badan iskugu jira wiilasha iyo ragga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa farxad weyn ah inaan ka soo qayb galo xalfadan qalin jabinta dufcadda tobnaad ay ka qalin jabinayaan 531 arday dhammaantood wada joogaan qalin jabintan waxaan leeyahay marka koobaad dhammaantiin hambalyo mudane ali marweyn saad wada ogsoontihiin dadaalo fara badan ayaa la wadaa dhanka dawladda gaar ahaan bahda caafimaadka sanadadii u dambeysay waxaa la waday dadaalo lagu gaadhsiinayo adeega caafimaadka bulshadeena maadaama ay tahay bulsho ku fadhida dhul baaxad weyn leh tiro badan oo bulsho aan leenahay dhulkaas iyo dadkaas in la gaadhsiiyo adeega caafimaadka waxaa jiray dadaalo fara badan oo la sameeyey hadday tahay in la gaadhsiiyo cusbitaallo cusub sidoo kale xarumo caafimaad oo cusub iyo rugo caafimaad oo cusub iyo saad wada ogsoontihiin maadaama dadkeenu u badan yihiin xoolo dhaqato iyaduna waxaa la diyaariyey nidaam ku habboon oo lagu gaadhsiinayo adeega caafimaadka oo loo yaqaano adeega caafimaadka wareega ama mobile health nutrition teams taas iyadoo laga duulaya ayaa waxaa laga maarmaan ah mar kasta in la helo xuduudii ka shaqeyn lahayd adeega caafimaadka maanta waxaa halkan ka qalin jabinaya 308 xirfadle caafimaad oo isugu jira kalkaalisooyin umulisooyin iyo sidoo kale shaybaadhayaal oo runtii ah fildiyada ama gooba ama xirfadaha baahida badan ay ka jirto adeeg bixinta caafimaadka goobaha ka jira deegaankeena Soomaalida waxaa sektor caafimaad ahaan anigoo ku hadlay magacayga iyo magaca xafiiska caafimaadkaba nii ballan qaadaynaa markaad soo qalin jabisaan maadaama baahi badan ay jirto in lagu meelayn doono goob kasta oo baahi ay ka jirto si adeeg hufan ay bulshadeena u helaan caafimaadku runtii waa adeegyada ama baahiyooyinka aasaasiga ah ee bulshadeena ay u baahan tahay
deegaankeenana waxaan mar kasta ku faannaa inaan helno cudud u dhalatay deegaanka oo ka shaqaysa goob kastoo adeega caafimaad si bulshadeena u noqoto bulsho isku filnaata dhanka adeega caafimaadka. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa kuliyadda East Africa International College oo runtii ah kuliyad u taagan inay soo saarto cudud deegaanka wax badan ka bedeli doonta siyaasadaha horumarinta iyo siyaasadaha lagu kobcinayo bulshadeena wax badan ka qayb qaadata. waxaan runtii uga mahadcelinayaa dhammaan maamulka ugu horeeyo maareeyaha sidoo kale dhammaan mas'uuliyiinta la shaqeysa iyo ardayda oo runtii dadaashay oo iyaguna ka soo baxay kaalintii loogu talagalay. insha Allah aan rajeynayo exit exam kan inaad soo dhameyn doontaan idinkoo soo qalin jabiyey taxaankiina soo dhameystay inaan iskugu imaan doono goobaha adeeg bixinta caafimaadka. insha Allah beritan aad noqon doontaan dadka lagu faani doono ubaxa berita waddanka maamuli doono inaad ka mid noqon doontaan baan rajeynayaa. mas-uulku aad iyo aad buu mahadsan yahay. dardaaran aad u qiimo badan buu ina siiyey. run ahaantii caafimaadku waa shay aad u qaaliya, waa shay aan lagu heli karin caafimaad. bulsho marka la qiimeynayna waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan bulsho caafimaad qabta, hadday noqoto jidhkeyga, hadday noqoto maskaxdeyda. marka dardaarankaas uu ina siiyey mas-uulku waxaa laynaga rabaa inaad weelaysaan. maxamed mataan, wakaaladda maamulka iyo dabagalka cuntada iyo daawooyinka iyo adeega caafimaadka. saaxiibka igula soo dhaweeya baan leeyahay, waa ganaha soo dhaweeyo. marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo hambalyo dhammaan ardayda qalin jabinaysa iyo waalidiintaba. runtii farxad ayay ii tahay maanta inaan kala soo qayb galo xafladdan oo ay ku qalin jabinayaan arday intaa dhan oo isugu jirta noocyada kala duwan ee bulshadeenna ay u baahan tahay, adeegooda ay u baahan tahay. farxadda idinku aad dareemaysaan maanta waxaa ka weyn midda ay waalidiintiin dareemayaan. runtii waxaan arkayay calaamadda yartahay ardayda ay maxaan ku dhaha qoorta soo gashadeen, xagga dambe waxaa kaga qoran markuu ardaygu ku dhaafo thanks mom and dad, hooyo iyo aabbo waad mahadsan tahay baa ku qoran, taasoo tilmaamaysa heerkan maanta aan joogno inayna inagu soo gaadheen haddii ayna jirin taageerada waalidiinteen ayna la garab taagan yihiin. haddayna jiri lahayn heerkan mayna soo gaadheen. marka farxadda aad dareemaysaan runtii waxaa ka weyn midda ay waalidku dareemayaan. waxaan rabaa marka inaan marka ugu horreysa u mahadceliyo waalidiinta idinku soo dadaashay ee heerka aad maanta gaadhsiisantihiin iyo farxadda maanta wejigiina ka muuqata inaad iyagu sababta u ahaa inaan u mahadceliyo. waxaan leenahay hooyo iyo aabbo waad mahadsantihiin, waxaad noo soo qabateen waad ku mahadsantihiin. laakiin intaasi markay taagan tahay maanta waalidiintu innagay qalinka inoo dhiibeen, mas-uuliyad bayna ina saareen. kulliyaddu innagay qalinka inoo dhiibtay, mas-uuliyad bayna ina saartay. mas-uuliyadda ayna saartay waa maxay? berrita inaan ugu adeegno si daacad aha oo ka go'naansho iyo xilkasnimo leh inaan ugu adeegno ayay naga doonayaan. waalid walba wuxuu farxayaa maalinka ilmihiisa adeegga uu bixinayay ammaantiisa loo sheego uu farxayaa sideedaba. marka waxaan rajaynayaa marka aynu qaadano exit examka oon rajaynaya inaan dhammaanteen ku wada baasi doono ardada halkan qaadanaysa exit examka oo 209 arday ah. waxaan u rajaynayaa inay dhammaantood ku wada gudbaan oo ay qaataan exit exam certificate-ka si ay u helaan xirfadihii iyo waxyaabihii kale ay u baahnaayeen ay u helaan. qaybta caafimaadka markii la yimaado annagu meel baan isugu nimaadnaa. halkan isugu nimaadno waa professional license. cabdi xuseen baa laga yaabaa inaad tagtaan HR-ka xafiiska caafimaadka kadibna uu ku yidhaahdo laysensigaagii soo qaado, kadibna laysensigaad xaggan timaado tirado laysensigii baan doonayaa anna inaan ku idhaahdo exit examka soo gal. dhacdaasi aan loogu baabi'in darteed ayaa systemka waxaa la sameeyey kow in laga soo bilaabo ardaygu markuu qalin jabiyey inuu qaato exit examka. exit examka haddii uu baasay inuu qaato laysensigiisa, kadibna uu helo shaqaalaysiintii iyo goobtii uu baahnaa inuu ku shaqaaloobo lagu shaqaalaysiyaa loogu talagalay.
waxaan rajaynayaa dhammaantiin idinkoo soo qaatay exit examka inaan isu imaan doono inta caafimaadka ahaa inta kaleetana sidoo kale waxaan rajaynayaa exit examka markay qaataan inay iyaguna u shaqo tegi doonaan goobtii kaleete ee lagu shaqaalaysiiyo cudud intaan dhan bulshadeenna way u baahan tahay adeeg intaan dhanna bulshadeenna way u baahan tahay kow ma joogno baahida dadkeenna ay qabaan xirfadlayaasha caafimaadka waxaan rabaa maalinka aad xidhato goonka dadku waxay kugu yeedhayaan magaca doctor adigoo naarsi ah ayaa lagugu yeedhay doctor adigoo farmasi ah lagugu yeedhay doctor adigoo laboratory ah lagugu yeedhayaa doctor macnaha ereyga doctor markay dadku kugu yeedhayaan macnahay tilmaamaysaa macnahaasoo ah inay bulshadeennu u qabto baahi badan xirfadlaya caafimaad oo adeego ay u baahan yihiin si inay u qabaan waxaan rajaynayaa waxbarashadiina maanta koob wareegii koowaad ama maxaa la yidhahdaa steebkii koowaad baad qaadeen maanta steebyo kaleetoo fara badan baa idin dhiman mas-uuliyadda ugu weyn idin saaranna waa wakhtigii aad soo lumiseen inaad bulshada u guddaan ilmuhu markuu dhasho waa lagu farxaa farxadda lagu farxayo qayb ka mid a waa maanta heerkan aad taagan tihiin natiijada ka dhalan doonta outcome-ka ka imaan doona wey waxaan rajaynayaa marka dhammaantiin idin rajaynayaa mustaqbal ifaya kaa wejigiinna ka muuqda farxaddaa wejigiinna ka muuqata bulshadana inaad ku celisaan iyaguna farxaddaasoo kaleeta aad siin doontaan baan idin rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan idin leeyahay hambalyo ilaahay cilmigaad barateen ha ka dhigo mid aad ummadda ku anfacdaan idinka naftiinnana ku anfacdaan mas-uuliyiinta caafimaadku aad iyo aad bay umahadsan yihiin jawaabidda ay kasoo jawaabeen codsigaan u dirsannay aad iyo aad bay umahadsan yihiin shukran baan leenahay waktigoo iska dhow waxaan kusii soconaynaa xagga khudbadaha haddana waxaan u yeedhayaa mas-uul ka socda xafiiska tiifadka cali nuur agaasinka dabagalka tayada ee tiifadka ayaan u yeedhayaa mudane cali nuur halayla soo dhaweeye mas-uulka bacda salaan sida la wada ogsoon yahay xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka dowladda deegaanka Soomaalida isagoo hirgelinaya yoolka xisbiga iyo xukuumadda deegaanka waxa uu jeexay siyaasad cad oo horumarinaysa ka qaybgalka bahda gaarka ama maaragtay private sector-ka inay si maaragtay maxaan ku dhahay meeqaam sare leh uga qayb qaataan dhankooda horumarinta bulshadooda taasoo siyaasadda uu xafiisku jeexay ay ka mid tahay in kuliyadaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba bacdama ay soo saarayaan arday walaalo ah oo laga yaabo midna inuu tii dawliga ah galo midna laga yaabo tii private-ka inuu galo hadhowna ay bulshadii ku soo dhex noqonayaan ee bulshada u adeegayaan in si siman oo maaragtay cadaalada looga warhayo loona taageero dhammaan kuliyadaha dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba sidaasi la mid ah taageerooyinka uu xafiisku kuliyadaha dawliga iyo kuwa gaarka uu u bixiyo waxaa ka mid ah inuu siiyo manhaj siman oo manhajka dawliga laga bixiyo iyo kuwa gaarka laga bixiyo inay siman yihiin sidoo kale inuu bixiyo tababaro kobcinta awoodda ee dhanka maamulka kuliyadaha iyo macallimiinta si awoodooda fulineed sare loogu qaado sidoo kale xafiisku waxa uu ka taageeraa kuliyadaha gaarka loo leeyahay inuu siiyo laysansi ogolaanshiyaha inay xirfadii bixin karaan sidaasi la mid ah waxaa la sameeyaa dabagal iyo taakulayn halkan waalidiinta waxaan u sheegaynaa kuliyadaha dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba si siman in loo kontaroolo oo la xaqiijiyo tababarada ay bixinayaan inuu yahay midkii saxda ahaa marka ardayda maanta nasiibka u yeelatay qalin jabinaysa waa arday aan soo dabagalnay oo juhdi gelinay oo yacni kuliyadda lagu dabagalay oo tayadooda la soo xaqiijiyey weeyaan marka annagu haddaan nahay xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka waxaanu soo saaraa annagoo la kaashanayna kuliyadaheenna xirfadlayaal ee leh aqoon kala duwan umahadsan yahay saxab ku fadhiisiya run ahaantii aad bay nula dardaarmeen weliba qaybta caafimaadka aad bay umahadsan yihiin looma kala hadhin aad iyo aad bay umahadsan yihiin annaguna abaalka waan u haynaa aad iyo aad baad umahadsantihiin baan leenahay waxaan ku sii sinqayaa gabagabadii iyo gunaanadkii xagga khudbadaha haddana waxaan u yeedhayaa marwada kuliyadda marwo ifraax maxamuud sharwac
marwada ila soo dhaweeya maamada ila soo dhaweeyo soo dhawaada leenahay sacabka dhammaan mas'uuliyiinta macallimiinta ardayda waalidiinta iyo dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay xafladeenan maqaamka sare ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan la dardaarmayaa ardayda dhammaantood heer kasta ama dibloon ha noqdo ama digri ha noqdo waxaan kula dardaarmayaa waxbarashadooda inay sii wataan oo aanay halkaa kaga hadhin waxaan leeyahay waxbarashadu waa furaha adduunka waxaan leeyahay maahmaahba waxay odhan jirtay child without education is like a bird without wings oo macnaheedu yahay ilmo aan waxbaran wuxuu la mid yahay shimbir aan baalan lahayn shimbir aan baalan lahayna sida ku duulaa way adag tahay marka waxaan leeyahay aqoonteennu kow ma joogto hore u wada heerka aad ka gaadhi kartaan ka gaadha waxaa kaloon ku dardaarmayaa jaaniska ay haystaan ardayda jiilka haatan la joogaa ardaydii ama waayahayagii ama ka horreeyey may haysan opportunity-ga aad haysataan cid hore u heshay ma jirto because imika waxaad wax baran kartaan idinkoo shaqaynaya idinkoo guri jooga idinkoo hadday dumar tahay umula idinkoo xaamil ah intaba waxbaad baran kartaan extension baad ku baran kartaan adigoo umulaad exaamkaaga ka qaybgeli kartaa adigoo ilmo wataad ka qaybgeli kartaa ardaydaadi baad la qalin jebin kartaa in any time waa hadday diyaar yihiin dumarka horta waxa weeyaan maanta waxaad barateen waa horumar waa aqoon waa laydinku tabcay waalid baa idinku tabcay waqti baad geliseen dhaqaalaa idin soo galay waxa weeyaan waxaasoo dhan aad ka midha dhalisaan baa laydinka doonayaa aad noqotaan iftiinkiiya bulshadiinna iyo deegaankiinna oo aad ku hagtaan inta guryaha joogta inta balwadaha leh meelaha fadhida aqoonta inaad ugu yeedhaan oo aad u sheegtaan waxbarashadu inay tahay iftiinka adduunyada ilaahayna aad u mahadnaqdaan oo idin siiyey deegaan nabada dad idin garab jooga waayo haddaan nabadi jirin waxba maynaan qabsaneen haddaan caafimaad jirin meel maydaan tagteen marka opportunity fiican baad haysataan jaaniska ka faa'iidaysta alwaqtu ka seef waqtigu waa seef alcilmu nuur waljahlu dulaam waa nuur cilmigu jahliguna waa mugdi qof aqal mugdiya ku jiraa muxuu arkayaa bahal hadduu ku soo socdo arki maayo wax guriga kula jira arki maayo haddii la soo ataago iska celin kari maayo laakiin iftiinkii faa'iidu leeyahay aqoontiina waa iftiin marka waalidiinta weliba dumarkana si gaaraan ula dardaarmaya waxaan leeyahay waqtigan lagu jiro opportunity fiican baad haysataan hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay gabdhahayga waxaan leeyahay inamaduna iyo iga cadhoon iyagana waan jeclay inay wax bartaan laakiin gabdhaha waxaan leeyahay gabadh wax baratay waxa ugu yar oo ay u qabataa waa ilmaheeda oo casharka ka caawiso xitaa hadday guri joog tahay oo tiraa maama maanta maxaa laguu soo dhigay waqtiyada qaar maamooyinkii aan wax baran waxa la tusi jiray waxaan jirin waxa loo qori waxa loo akhriyi jiray waxaan jirin waxa la odhan jiray halkan aan marnay sidanaa la yidhi anigu andhayaa baaban ahaabay hooyada ku fadhiisan jirtay odhan jirtay ilmahaygu waa andhayaa maamada maanta wax barataa ilmaheeda waxa u yaray ka caawin kartaa waa casharka number 2 alaab expire uu sitaabay odhan kartaa waxaan uu dhacay prescription kay ka akhriyi kartaa oo ay odhan kartaa waxa lagu qoray dawadii waa sidan inta aanay dhakhtar iyo meel caafimaadba gaadhin gurigeeda ilmihii ku dawaysan kartaa hadday wax akhriyi karayso oo wax qori karayso marka maamooyinka waxaan leeyahay gabdhaha waxbarta ilaahay baa mahad leh oo waqti fiican ina siiyey halkan isku keen soo gaarsiiyey maanta inaynu isugu nimaadno annaguna aan idinla faraxno cilmigana waan idinku dardaarayaa mas-uuliyiinta sharafta leh maamooyinka idinku soo dadaalay waalidiinta aabba iyo hooyaba leh macallimiinta intaba salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
marka gabadh heergiyo runaantii waqtigoo nagu yar intaasaan kusoo gabagabeynayaa hooyadu aad bay umahadsan tahay waqtiguna nagu yar yahay hadda waxaa soo dhaweynayaa anuu yeedhayaa mar labaad ay kula yeedhi doontaan waa maareeyaha kuliyadda oo mar labaad inagu soo noqon doona si uu khudbadiisii inoogu soo jeediyo waqtiguna maadaama uu nagu yar yahay mudanaha soo dhawow baan leeyahay maareeyaha soo dhaweeya sacab mudane بسم الله الرحمن الرحيم مرلبات مرتي شرفته أردد قلن جبينيسة والددو ذا معلمين تشرفت له وحان إذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن يلي مروين أردد شرفت له ما أنت قلن جبينيسة تاريخ دون يكون بيجنتهاي تضبيه طبنكي بشي اللباد labada kun iyo 16 waxaan idin leeyahay hambalyo mudanayaal iyo marwooyin ardada sharafta leh iyo macallimiintooda iyo ka soo qaybgalayaasha maanta waxa qalin bedelanaya arday tiradoodu dhan tahay 531 arday oo isugu jira digriga koowaad iyo diploma ama TVET systemka waxa loo yaqaano sharaf weyn bay noo tahay bahda Eastern Africa inaan maanta idinku hambalyeeyno guushan aad gaadheen ee aynu wada gaadhnay ummaduna ay u baahan tahay waa maalin sharaf leh waa maalin idin noqon doonta astaan iyo xasuus marka aad noqotaan madax iyo waxa weeyaan hogaamiyayaal ummadda wax u qabta oo adeegsiya tirada aan sheegay 531 waxay isugu jiraan 250 arday oo rag ah ama lab ah iyo 281 gabdha ah ama moogtahay dhedig ah runtii ragii waa laga sareeyaa maanta oo tira ahaan way kaga sareeyaan waxaan rajaynayaa xilliga abaalgudka inay ka dhex muuqan doonaan arday gabdha ah oo la dadaalay walaalahood oo heer fiican maanta taagan iyagana waxa weeye waxaan leeyahay hambalyo mudanayaal iyo marwooyin ardada sharafta leh iyo macallimiintooda iyo marti sharafta ka soo qayb gashay waxaan halkan ka cadaynayaa oo aan 100% aan idin leeyahay ardayda aad arkaysaan maanta ee aad ballanqaadada kala duwan aad u samayseen waa arday buuxisay dhammaan shuruucihii waddanku u dejiyay hadday caafimaad tahay iyo hadday social tahayba oo noqon kara fulin kara waxa weeyaan hanan kara inay ummadda deegaanka dalka iyo tangeeskaba ay u adeegi karaan intaas kadib kuliyadda Eastern Africa International College waxaa la aasaasay 2001 iyadoo laga aasaasay ama lagala wareegay team waxa weeyaan waddanka aan wadaagno oo waxa qoomiyadaha kala ah khaasatan magaalada Harar ama Harar region kadibna ay la wareegeen dad Soomaaliyeed oo ganacsato u badan iyo aqoonyahan waqti xaadirkana waxay ku soo faaftay deegaanka qaybihiisa kala duwan oo jigjiga ay halbowlo u tahay marka Eastern Africa International College waxay ku taalaa deegaanka Hararida ama magaalada Harar iyo deegaanka Soomaalida oo halbowlaheedu yahay magaalada Jigjiga ama caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh iyo ardadeydu farxad gooni ayay tahay inaan idin soo gudbiyo maanta oo munaasabadu ay tahay mid aad u heer sareysa oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin aad u culus qiimo weyn deegaanka u leh idinkana saameyn idinku leh idin daadahayn kara wax idinka caawin kara hadday shaqaalaysiin tahay iyo hadday tusaale la idin siiyaba ay tahayba kuliyadda Eastern Africa waxa ay bixisaa waaxaha kala duwan ee digriga iyo dibloomka isugu jira digriga waxa aanu bixinaa nursing oo digriga koowaada iyo management oo digriga koowaada waxaan isleeyahay labada waaxood baahi weyn baa ka jirta deegaan ahaan iyo dal ahaanba waayo hooyooyinkii dadkii waayeelka ahaa ciyaalkii hooyadii uurka lahayd ee xaamilada ahayd dhammaantood waxa u baahan yihiin adeeg hufan oo caafimaad qaba oo naxariis leh oo kalgacal leh oo tilmaan leh oo waxa weeye ay ku qancaan bay u baahan yihiin
marka ardayda khaasatan caafimaadka baratay maanta oo ay bishu tahay 17 bishii 2016 waxaan boqolkiiba boqol idinku wareejinay mas'uuliyadii aanu idin haynay muddadii u dambeysay 4 sano ahayd waxaanu idin oran jiray dadaala waxbarta aan barwaaqo gaadhnee barwaaqadii maanta taagantihiin waxaa la rabaa inaad aqoontii la idin baray aad ummadda ku anfacdaan oo aad wax u qabataan oo aad u naxariisataan oo aad hagtaan oo bukaanka aad si sharaf leh oo naxariis leh aad u adeegtaan baan runtii idinku waxa way dhiiri gelinayaa maadaama aan bahda caafimaadka ka ahay xubin oo deegaankana aan in badan fahmi karo baahida loo qabo deegaanka ardayay anigoo ah maamulihii ama maareeyihii kulliyadda waxaan idin leeyahay waa inaad dareentaan fahantaan garataan oo aad ixtiraamtaan sharafta iyo karaamada bukaanada aad berrito u shaqayn doontaan ay idinku leeyihiin iyo sirahooga inaad qarisaan mudanayaal iyo marwooyin ardayda sharafta leh iyo waalidadooda iyo macallimiinta iyo marti sharafta kale waxaan sidoo kale halkan ka cadaynayaa ardayda managementigu inay iyaguna fursad weyn haystaan haddii ay fahmaan waxa ay iyagu haystaan waxa aad haysato ayaa go'aankaaga gali kala oo noloshaada saameyn ku yeelan kara waa inaad fahantaan in loo baahan yahay hogaamiyayaal cusub oo deegaankooga wax u qabta oo dalkooga wax u qabta oo saameyn geeska Afrika iyo caalamkaba ku yeesha oo maskaxdooda tuujiya oo dadka jiheeya hadday beer tahay beeraha ku jiheeya hadday caafimaad tahayna caafimaadka ku jiheeya hadday waxa weeye waxbarashada qaybaheeda kala tahayna ku jiheeya idinka la idinka rabaa inaad halbowlo noqotaan oo aad noqotaan central nervous system sidaas awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay hambaliyo waxa aanan ka maqnayn oo iyagana halkan aan ka cadaynayaa waaxaha TVET-ka ama tababarada waxa weeye 2 sano socda oo ay isugu jira pharmacy diploma ah nursing diploma ah medical laboratory diploma ah iyo accounting diploma ah oo deegaanka u heelan inay wax u qabtaan caawiyaan oo ummadooda u shaqeeyaan si lamida ardaydii digriigi waxaan idinkana idin leeyahay ardayay mas'uuliyadda maanta aad la wareegteen waa inaad aqbashaan oo aad dhaadhicisaan oo aad ummadiina u adeegtaan raxajecelo waa inay idinka qabato ummadan aad idinku haldoorka u noqonaysaan waxaan idinkula dardaarmi jiray markii aad kalaasyada ku jirteen ardayay waxa idin sugayay deegaan very virgin ah oo aad baahi badan uga taagan tahay sector kasta oo u baahan inaad haldoor u noqotaan maanta ayay astaantii idin hortaallaaye waa inaad aqbashaan oo aad cilmiga la idin baray aad ummadda ku anfacdaan oo ummadda aad ku hagtaan waxa runtii farxad gooniyay ah khaasatan maamul ahaan iyo macallimiin ahaanba sektorka caafimaadka khaasatan farmasiga deegaanka inaanu nahay tira ahaan iyo taya ahaanba dadka ugu sareeya haddii aad tagto xarumaha caafimaadka ardadayadii baa ka buuxda oo waxa weeyaan ama department headiya ka ah ama moogtahay haldoor kale u ah waxaana arintaa aan saa u leeyahay qiimayno ama dawli ha ahaato ama private ha ahaato oo aanu ku samaynay xarumaha caafimaadka dhammaan way ka buuxaan waa arday waqti naga galay waa arday aanu maskaxdooda tuujinay waa arday aan train garaynay sidaas awgeed waxaan dareensanahay oo aan boqolkiiba boqol aaminsanahay inay hanan karaan adeeg kasta oo loo dhiibo iyo mas'uuliyad kasta oo loo dhiibo inay hanan karaan kana soo bixi karaan baan dareensanahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idin leeyahay sidii marwadu ay sheegtay iyo tiimkii ugu horeeyay ee wasiirada iyo wasiirka ku-xigeenku aqoon la'aan waa iftiin la'aan lama simin mana sinna qof wax barta iyo qof aan wax barin way kala sareeyaan ilaahay baana kala sareeyay way kala garasho badan yihiin way kala cilmi iyo aqoon badanayaan saas awgeed cilmigan kan hadda aad dhameyseen kaliya ma ahina waa inaad istabka kale ee ku xiga ee masterta aad iyo ka digrigaaba aad sii socotaan baan iyadana idin kula dardaarmaya mudanayaal marwooyin sida ay mas'uuliyiintii ugu horeysay ay sheegeen tiro gaadhaysa 209 arday baa exitka sanadkan u fadhiisan doona waxaan u rajaynayaa guul la taaban karo horumar la taaban karo iyo heer baasitaan oo aad u sareeya ayaan iyagana u rajaynayaa wixii kaalmay u baahan yihiin diyaar baan u nahay sidii uu sheegay Dr. Musa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga sidaas awgeed waxaan idin leeyahay boqolkiiba boqol inaad hanataan cilmiga la idin baratay waa laga maarmaan
waxaan halkan ka soo jeedinayaa aragti ah private sector-ku muxuu yahay arrinta aad ha laga dhegaysto runtii private sector-ku muxuu yahay private sector-ku waa buuxiyaha goldololooyinka meelaha adeegu ka bannaan yahay iyo sidoo kale dhidib ka mid a dhidibka horumarka ee deegaan ama dal uu leeyahay private sector-ka in lagu baraarugo oo laga shaqeeyo oo loo shaqeeyo oo ummadda lagu horumariyo ayaa loo baahan yahay ardayga jaamacadda dawladda ka soo qalin jabiyey iyo ardayga private-ka ka soo qalin jabiyey waa isku manhaj waa isku sanad saas awgeed perception waxaa jira ardayda private-ka ka soo qalin jabinaya oo jaamacadaha private-ku way ka tayo liitaan baa jira waxaan halkan ka caddaynayaa aniga oo macallin yacni ah xarumaha dawladdana macallinka ah tan private-kaana maamulo ka ah in ardaygu aan lagu qiimayn karin private sector buu ka soo qalin jabiyey waa tayo liitaa waxaan idin leeyahay kumanaan baa jira private sector-ka ka qalin jabiyey ka tayo fiican ka hogaamin fiican ka aragti fiican kuwa dawliga ka barta waa arrin xaqiiqo ah mana aha mid aan ku dhaliilayo laakiin waa wax jira oo dhici kara weeye arrintaana inaad dareentaan baa muhiima mudanayaasha xafiisyada matalaya waxaan ka codsanayaa ubadka maanta aanu idinku wareejinay waa ubad tababaran ubad haddii xataa ubad waxaan u leeyahay kalgacal gooniya waa ardadaydii oo waa ubaxan annagu beeray waa ubax aanu biyo soo siinay haddii qorrax u baahan yahay qorraxdii aanu siinay intii cadadkii loogu talagalay hadduu tilmaan u baahan yahay tilmaantii loogu talagalay mudanayaal iyo marwooyin khaasatan mas-uuliyiinta deegaanka waxaan u gudbinayaa oon ka codsanayaa in ardayda kulliyadda Eastern Africa ay runtii garab istaagaan oo ay ka caawiyaan wax kasta oo macquula oo ay u baahan yihiin taasina waa codsi gooni oo aan gudbinayo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga waxaad ogaataan mas-uuliyadda maanta la idinku wareejiyey inaad dhaqan gelisaan u naxariisataan ummadda hogaamin haddaad noqoto mustaqbalka u naxariiso ummadaada wallaahi alcadiim inaan la faa'iideynin ilaa iyo in ummadda loo naxariisto mooyaane ummadda aad hoggaanka u tahay inaynu u naxariisanno ayaa loo baahan yahay inaynu inagu dhexdeenna isugu naxariisanno ayaa loo baahan yahay ubadka aan maanta idin leeyahay waa inaad noqotaan dad kora oo ummadda wax u qabta deegaankana waa inaad ka dhex iftaan oo aad ka duwanaataan kuliyadaha kale oo aad kaga duwanaataan akhlaaq aqoon aragti iyo waxa weeyaan ixtiraam waa inaad kaga duwanaataan waxaan hadalka ku soo koobayaa mudanayaal iyo marwooyin runtii waqtigii baa ila dheeraaday oo macallinimada iska noocaaya waxaan idin leeyahay mas-uuliyadda maanta aad la wareegteen biliis fahma ummaddana u shaqeeya bahwadaag kasta oo aad leedihiinna soo dhoweeya waxaan idin leeyahay guulaysta aad iyo aad baanu idin jecelahay aad iyo aad buu mahadsan yahay maareeyuhu kulley dardaaran fiican oo waa oola ayuu ina siiyey waxaa laynagu dardaarmayna waxma waa la yar cajisaan u malaynaya marka gabagabadii iyo gunaanadkii baan madaynaa marka waxa lagu leeyahay wax kale maaha haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo ballinay sidoo kale waxaan leenahay hawlaha adduunyada haddii lagugu aamino adeega lagaa dhigo hays odhan cidi kuma arkaysee in adeerso markaa dardaaranku saasuu yahay marban بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka ugu horeysa waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee nagu soo gaarsiiyay naga dhigay dad islaama inaan maanta goobtan ku kulanno arday fara badan maskax iyo maal badan lagu soo bixiyay inaan kala soo qayb galno Ilaahaygaas aan u mahad celinay marka koobaad marka labaad anigoo ku hadlay magacayga magaca waalidiinta magaca odayaasha dhaqanka deegaanka marka ugu horeysa waxaan leeyahay ardadii wax soo baratay hambaliyo marka labaad wasiirada Dr. Muuse madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda madaxweyne caafimaadka wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Ayaale Xasan iyo dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay
marti sharafta iyo ardada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxadda iyo salaanta kadib waxaan leeyahay in yaroo dardaarana waxaan doonay maadaama aan waalid ahay ka soo qayb galay farxadda halkan ay keentay hadda laba ilmood oo dhali baa fadhido wiil iyo gabadha farax urur cabdulaahi iyo cabdiqani urur cabdulaahi way jiraan kuwa bannaanka fadhiya oo mar hore jaamacadaha ka baxay oon dhalay dadaal bay ardadan rabaa inaan dardaaran siiyo halkaa inaad soo gaadhaan ciyaar ma aha nin baa wuxuu dhihi jiray ilmaha ardaygu wuxuu mustaqbalka waxbarasho gaadhaa magtiisa markuu dhammaysto tusaale magta rag waa 100 dumarkana waa 50 waxaan rabaa ardada inaan kula dardaarmo qof walba magtaadii oo dhammaystiran baad qabtaa halkaa ku soo gaadho waxaan rabaa oonan mar laba iloobaynin oon rabaa inaan xuso macallimiintii jaamacadaha ee ubadkanaga soo barbaarisay ee u dambeeyay maareeya hadda hadlaya ama macallinkii aad baad u mahadsan tihiin allah idin barakeeyo aad iyo aad buu mahadsan yahay ugaasku waalidku dardaaran qiimo leh buu na siiyey waxaan ku sii sinqanaa gabagabadii iyo gunaanadkii wal yar caajisaan u malaynayaa in yar bay noo dhiman haddana waxaan u yeedhayaa xubin ka mida macallimiinta oo ku hadli doona afka macallimiinta waxay la soo dhaweeyaa mudane ayaan leh maxamed oo ku hadli doona afka macallimiinta sacabka la soo dhaweeyo marka u horeysa ilaahay baa mahad leh madashan aadka u quruxda badan la isugu keenay mas-uuliyiinta iyo marti sharafta nagala soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin macallimiinta iyo maamulka soo agaasimay xafladdan ayaguna aad bay u mahadsan yihiin kolley hadalkayga waan soo koobi anigoo ku hadlaya afka macallimiinta waan idin halmalyeynayaa waan idinla dardaarmayaa waanan idin ducaynayaa marka u horeysa waxaan leeyahay hambalyo 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 maalinkan aadka u quruxda badan le bagaad nabad ku soo gaadheen run ahaantii si dhib yar kuma idin soo gaadhin in badan casharaad soo dhigateen practical theory exaamyo assignment iyo wax badan oo soo qaadateen kadib ayaad heerkan soo gaadheen soo markaa waxaad mudantihiin maanta in hambalyo la idin dhaho madasha noocan oo kale marka la iskugu yimaadana waa la isku hambalyeeyaa waa la isla dardaarmaa waana la isku duceeyaa soo anoo afka macallimiinta ku hadlaya dardaarankaygu wuxuu daaran yahay kulliyadaha aad barateen ama departmentiyada aad barateen waxaad ku gaabteen xirfad waa aad bay muhiim tahay soo field walba aad baratay haddii aad nursing baratay haddaad laboratory baratay iyo haddii aad management tahayba waxaan rabnaa inaad xirfad aad baratid xirfadtaasoo aqoontii aad kulliyadda ka baratay aad ku gaabaysid kolley inaan sii dheereeyo hadalka ma rabo timeka aad buu sii dhacayaa waxaan idinkula dardaarmayaa inaad dadaalka aad ugu jirtiin inaad cilmi kordhisitiin inaad halkaa ka sii wadiin dhammaantiin waan idin jeclahay guulo badan baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum sanadkan 2027 bisha labaad 17keeda 2026 waxay noo qalin jebin doontaa arday dhan 530 arday waxay isugu jiraan rag iyo dumar ragga waa 250 arday dumarkuna waxa weeyaan 281 arday waxay isugu sii jiraan degree iyo diploma programs waxda degree programska waa laba waaxood ba ka qaljabin doona oo ah management iyo BS nursing oo noqonaysa tiradoodu 180 arday oo rag iyo dumar noqonaya rag 103 arday oo raga iyo 78 arday oo dumar ah qaybta diploma programska waxay noo qaljabin doontaa 350 arday oo iskugu jira 147 raga iyo 203 dumar ah oo guud ahaan noqonaysa 530 arday waxa ay jaamacaddu bixiso waxa weeyaan 6 departmenti oo kala ah pharmacy medical laboratory nursing accounting iyo ICT waxaan leeyahay mar labaad hambalyo kulli waqtigu aad noogu yar waxaan soo koobi doonaa khudbadayda anoo mahadnaqaya dhammaan
waalidiintii dadaalka badan soo gelisay ardayda ubaxa aynu hor fadhiya waxaan leeyahay waalidiinta aad baad u mahadsantihiin sidoo kale ardaydana waxaan ugu mahadnaqayaa dadaalkii dhaqankii wanaagsanaa iyo maxaa dhahday dadaalkii badnaa ay bixinayeen inay nagula joogeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin